farmaajo ayaa dib u bilaabay ololihiisa siyaasadda ee ugu tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waxa ku soo dhawaada qubanaha qorone waxaanu ku bilaabeynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ololihiisa siyaasadda dib u bilaabay markiisii koobaadna muddo 3 sano ah la arkay isaga oo sameynaya shirar xasaasi ah dad muhiim ah la kulmaya sidoo kale markii la dilay dad badan oo dhalinyaro ah. Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa ay heshiinayaan dhalinyaradiina waalidkood waa ay waayeen ilmo badan aabayaashood waa ay waayeen dartooda dad badanna waa ay u barakaceen haatan heshiis ayaa socda labadaas qodob ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa ee ku soo dhawaada wada isagoo faahfaahsan aynu ku bilaabano wadanka Turkiga. maanta markii uu horeysay waxaa lagu arkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka soo hormuuqday miidiyaha muddo 3 sano iyo bar ah oo uu maqnaa. Farmaajo ayaa dib u bilaabay ololihiisa siyaasadda ee ugu tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uuna rabaa inuu sameysto koox aad u adag oo uu la shirtago sanadka 2026 oo haatan waqtiga doorashada ay ka dhiman tahay wax ka yar 8 bilood. shir xasaasi ah oo ay ka soo qayb galeen dad aqoon-yahano lagu sheegay ayaa Farmaajo la qaatay xubno isugu yimid magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. laakiin nasiib darrada Farmaajo haysata ayaa waxay tahay dadka shirka la fadhiyay hal qof oo la garanayay gabi ahaantiisa ma aysan jirin. waxaana tan u muuqataa in Farmaajo dadkii dhamaa ee siyaasadda ku jiray uu aamini waayay maadaama uu tabanayay in la hagardaameeyay sanadkii la soo dhaafay oo saaxiibkiisa ugu dambeysay ee Fahad Yaasiin oo balanta uga baxay. wuxuuna hadda doonayaa isagoo magaciisa sharaftiisa iyo qofnimadiisa isticmaalaya in uu soo dhiso dad kale ee aan la aqoon oo siyaasadda Soomaaliya aan ka dhex muuqan laakiin ah aqoon-yahano Soomaaliyeed oo dunida dacaladeeda iskala yimid. dadkani Farmaajo waxa ay kala talinayeen sida ugu macquul galsan ee mar kale ugu soo laaban karo madaxweynenimada Soomaaliya. waxa kale oo Farmaajo uu haystaa sida la aaminsan yahay taageero wadan Carabeed oo hadda uu ku nool yahay kaasi oo siinaya malaayiin dollar si arrimihiisa uu guto. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka laga tago saaxiibadii kala shaqeeyay sanadkii la soo dhaafay siyaasadda oo ay qaarkood intii ugu dambeysay siyaasadda waqtiga ku jira ay kala dhaqaaqeen. Fahad Yaasiin ayaa ugu dambeeyay Fahadna waa ay kala furteen waxaana la aaminsan yahay inay ku dagaaleen isha dhaqaale ee taala Dooxa wadanka Qatar taasi oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu la wareego. si kastaba ha ahaatee Farmaajo haatan waa musharax cad oo asagu doonaya in qofnimadiisa uu ku shir yimaado isla markaana ololaha uu ku sameysto. kulanka maanta ka dhacay Istanbul waxa uu ahaa mid xasaasi ah oo lagu qaabeynayo ololaha doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la filayo mar dhow inuu tago magaalada Muqdisho isla markaana mar horeba xafiis ka sameystay wadamada Kenya iyo Soomaaliya oo uu doonayo in shaqadiisa dardar looga bilaabo. dad badan oo la dilay ilmo agoon laga dhigay maata la barakiciyay kadib Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe waa ay heshiinayaan. hadalkani ama ha ahaado mid aad ku faraxdo ama mid aad ka naxdo laakiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu cadeeyay in ka hor doorashada Soomaaliya inta aysan dhicinin uu ka shaqeynayo inuu la heshiiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. ila xogogaal ah ayaa cadeynaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u duuli doono Kismaayo si Axmed Madoobe uu ugu jilbo dhigto ama u jilbo jabsado oo u raali geliyo. Axmed Madoobe oo markii hore la qorsheynayay in uu yimaado magaalada Muqdisho ayaa diiday gabi ahaanteeda waxa uu sheegay amnigiisa aawadeeda inuusan imaan karin halkaasi si kastaba maadaama warqad waaran oo ka jaran tahay. arrintan waxa in muddo awooday dawladda Kenya oo isku soo dhaweynaysay labadooda ugu dambeysna waxa la rajeynayaa in ay wada fariistaan oo heshiis ay wada gaaraan waliba Xasan Sheekh Maxamuud ay arrintan ka go'an tahay. tani waxa ay niyad jab ku noqotay dhabarka ka jabisay isla markaana dadku maanta ay si salaameyn wajiga ay kala dadbayaan dadka ku nool gobolka Gado oo ayagu sheegayay in New Jubbaland ay dhisi doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliyana ay garab taagan tahay. Xasan garabkooda waa ka baxay kadib markii lagu diray Axmed Madoobe oo ay la dagaaleen kadib markii magaalada Balad Xaawo ay gubeen kadib markii wiilashoodu ay isku dhinteen kadib markii ilmahoodu ay barakaceen kadib markii ay u yaalaan ilmo badan oo agoon ah oo Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ishaya aawadood ay u dhinteen aabayaashooda
odayaashii iyo waxgaradkii oo joogana isku fiirsanayeen kadib markii magaaladooda la burburiyay dhalinyaradoodiina isku dhamaatay ay noqdeen kuwa isku careysan siyaasad aawadeed isugu dagaalsan haatan kuwii isku soo diray ayaa heshiinaya odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta Jubbaland maantay hadal aan wanaagsaneyn ayaa u soo yeeray taas oo ah in wixii ay u dagaalamayeen madaxweynihii soo diray uu dhabar ka jabiyay hadaba adiga haddaad tahay reer Gado arintani sidee ay ku taabatay